السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك waxay ku taxan channelkeeda Jimala Yare officially marka hore waxaan idin leeyahay intaadan u galan gudaha daawashada muuqaalkeeda gambaleelka saar subscribe ku dhufo hala jir like na saar si aad u noqotid ruuxa ugu horeeya warbixinada ay soo gaaraan maanta mawduuca aan wada mawduuc aad u culus waaye bulshooyinka Soomaaliyeed ay joogaan ka gilgishan laakiin aniga waxaan la hadlayaa bulshada saddex qayb bulshada ka mid ah qaybta koowaad waa waalidka ama waalidiinta ubadka dhaleen baan la hadlayaa qaybta labaad waxaan la hadlayaa culimadiinka qaybta saddexaad waxaan la hadlayaa dhalinta da'da yar lab iyo dhidig isugu jiraan soo dhawaada marka koowaad marka labaad soo dhawaada marka saddexaad soo dhawaado arrimaha maanta xasaasiga ka dhex ololeysan ama ka dhex ogan baraha bulshada waa arrin bulshada dhan ay ka gootay markaan soo qaado gabadha walaashayna la dhahaa Cayuun Qurux ma jecli inaan soo qaado sawiraanteeda muuqaaladeeda macnaheedu ma sameynayso mana ahan mid sharaf iyo wanaag ugu dhisan laakiinse waa gabar walaashayna sida gabadha walaasheeda aan u jeclahay yaan u jeclahay gabar walba Soomaaliyeed in sharafteeda iyo akhlaaqeeda iyo usluubteeda la ilaaliyo yaan u jeclahay marka koowaad waxaan la hadlayaa waalidiintu waalidow haddii aana dhasheen waxaa isku daydaan oo mar walbana mas'uuliyadda idinka saaran tahay sida diinta ay sheegtay kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulun can ra'iyatihi ruux walba mas'uul ruux walba wuxuu mas'uul ka yahay wixii la raaciyay marka haddii ubadkaadii aad dhashay waxaa la jiray aad ogeyn meel uu ku maqan yahay sababtu u maqan yahay ciduu saaxiib leeyahay ogow adiga cunugaada ubadkaada aad si daasi maqnaashiisna raali ka tahay ubadkaada ruuxu saaxiib leeyahay waa inuu diin saaxiib kula noqdaa ha noqoto gabar madraso dhigato ha noqoto gabar asluub leh ha noqoto gabar adaab leh oo dadka ay garanayaan ubadkaada hadduu wiil yahay hadduu gabar yahay wiil hadduu yahay ha noqdo wiil degan oo diin leh akhlaaq leh asluub leh madraso islaam dhistaan waa diyaar oo ku aamini karta laakiin saaxiibka kale ma maleynayo in wiilkaada ama ubadkaada wanaag u sameynayo way gaalada kale saaxiibada way kala saarayaan dhowr nooc u qaybiyaan waxay dhaheen Elia friends companion waxna casaal la macnaheedu saaxiibka kan guriga kula joogo kan iskuulka isku barteen kan magaalada isku barateen saaxiib walba meel bay u saareen laakiin saaxiibada oo qaaska anaga aan lahaan karno ama ruux shakhsi u lahaan karo saaxiibka diinta ku caawin karo wanaagana ku caawin karo Soomaalidu waxay dhahaan waxa adiga ka soo uraya yaa saaxiibkaadana ka soo waxa adiga ka soo carfaya ama ka soo shiraya saaxiibkaadana ka soo shiraya hadii saaxiibkaadu daroogaystay aan daroogaystin waxa xitaa dad aan lagu qiyaasaya ilaan saaxiibkaadu wuxuu oo qaldan oo wada qaldan ku socdo ayaadna saaxiib la tahay la socota marka dad min saaxiibkaadu wuxuu yahay in baadna lagu qiyaasaya tan kood waalidku waxaan la dardaarmayaa inay mas'uuliyadda istaraan ubadkan aad dhashay maanta lagu weydiinayo bariya lagu weydiinayo weydinta ubadkaada kama harayso maalintii yawmul qiyaamah hadii la keenaata ubadkaada qaab daran mas'uuliyadiisa aad askare hadii yaraantu ku soo dhumo haddii intuu sabar baarisay madarasa ay geysay diinta u barto waxa uu bartay oo soo wanaagsan sabar baaray oo reer ama 28 sano u gaar oo dhumi taa lagu ma haysta saala haysta damiisa saas kale laakiin intuu yar yahay maxaa la jira ubadkaada badbaadiisa iyo wanaagiisa iyo kobcintiisa korintiisa adiga ku saaran tahay cid kale shakhsi ku saaran dariskaada ma saarno eelkaada kale ma saarno cid kale inta nooshahay ay joogtid adiga ku saaran tahay taas waxa uu leeyahay markaan fiiriyo sawiraanta gabadhan yar hadda Cayuun Qurux waa gabar yar haddana been sheegna gabadha 15keeda inuu dhameystirnaa filaa 18keeda may gaarin inay jirtaan jeclaa wajigeeda marka artid iyo dhabankeeda waxaan galay TikTok-geeda arkay Facebook-geeda waan arkay marka muuqaaladii la soo dhigay waan arkay marka gabadha gabar waxa way aad u daayar waay waalidkii dalna kulli waxaan jeclaa inuu joogo carruurtaada si waa u barbaarinaysaa wuxuu ku dhahay telefoon iga ugu fadara bilawgeeda waay telefoon weyn baa u soo gadaysaa waa siinaysaa cunuga telefoonka ciduu kala hadlaya wuxuu ku sameeyay ma sheegi kartaa telefoonka wanaag ma laga qabsaa xamaan laga qabsadaa walahinta maanta joogto markaan fiiriyo 97% waxay badin xumaan 97% YouTube baa la furtay ruuxa buxura wax u gadmay waxa ku gadma marka wax ku gadmi kara maaha walaashooda qaabisay walaashooda aqaantay walaashooda suxna ku sameysay wax ku gadmay waxa ma wax ku gadma wax saacadaad sharafta qoyskaada dhinac kaga dhacay marka waalidku waxaan leeyahay feejignaan fara badan halo yeesho carruurta dhasheen feejignaan fara badan oo yeesho mas'uuliyadda ay ku saaran tahay
hadaa lagu weydiinayaa, aabiyo hooyaa lagu weydiinayaa. Aabiyo hooyo caruurtiina mas-uuliyaddooda ilaaliyo, kor iska saara. dhanka kale waana ila qabdaran tahay laakiin waan dhahayaa waqtiga ila galayaa cilmi waxaan leeyahay kalintooda ha xoojiyaan. ma dhahay way gabeen laakiin waxaan leeyahay ha xoojiyaan. waxaa laga yaabaa ilmo fara badan ay guriga kasoo baxayaan, gurigaada ka baxayaan, haddana gurigii ay ka baxayaan aadan ka warhayn meel ay aadeen. marka waalidka waxaan leeyahay had iyo jeer waxaan leeyahay wacdiyada madrasooyinka dugsiyada meelaha qaar dhalinyarta iskugu imaadeen wacdiyada xoojiyaan. xitaa haddii youtube-yada qaar ay qabaan sida sheekhayaha qaar muqdisho joogaan oo kale maxaa la jiray ayagana ha xoojiyaan muxaadarooyinkooda, wax sheegooda, hagida dhalinyarta sida oo xagga quraanka lagu soo jiidan lahay, wanaaga dhalinyarta la faraayo, waxaasoo dhanba ha sheegaan insha allah. waalidkan waxaa dardaaran kale ugu celinaya cunugaada salaada ku abaahi. waayo salaada waxaa waaye inaad salaata tanhaa can alfaxshaa walmunkar aayadda quraanka ahayd. salaada waxay kaa reebtaa faxshar iyo munkar oo dhan bay kaa reebtaa. haddii salaadada aragto inay faxsharka iyo munkarka kaa reebeen salaadada ma saxno, way qaldan tahay. waxbaa ka qaldan, sax meeshay ka qaldanta ka sax. marka salaadan dadka carruurta lagu dadaalo. waxaa arkaysa gabdho fara badan oo salaad duhur, salaad casr, salaad maqrib waqtiga qoraxda meel ay ku dhacdo, meel ay ku subxaan sheegi karan waqtooda ku luminayaan meelaan munaasab ahaynin, meelaan si haddii la maanta waxaa soo degaa fanaan hebel ama waxaa soo degayaa fanaan hebel ama waa meel baa laga qabanayaa ama beach baa meel bad baa la aadin lahaa, waa loo soo kala dilaya. laakiin khayraadka maya, khayraadka waa lagu adag yahay in xagga diinta loo cararo, in xagga maxaa la jiray xadiisyada iyo loo cararo. dadka aad bay ugu adag yihiin salaada saas oo kale. marka insha allah waxaan leeyahay dadka waalidka iyo sheekhayaasha waxaa la jira ardayda ama wiilasha ama gabdhaha hala hadlaan insha allah. waalidkiina dhankiisa ha xoojiyo, culamaadiinkana sidoo kale dhankooda ha xoojiyaan. waxaa kaloo rabaa inaan la hadlo dhalinta daada yar sida lab iyo dhidig waqtiga isguraya telefonkaana ii saamixi doonan in waqtiga ii gaarsiiyo. waxaan lahayaa wiilasha daada yar oo jiilka hadda soo kacayo daadeeda aan la hadlaya. wiilow haddaa wiil tahay gabar baa kula dhalatay xisaabta ku darso. waxaad samaysid waa lagaa jaraya, wax adiga kuu qoran waayo. walaashaada laga jaraya, gabdhaada laga jaraya, eedada laga jaraya, hooyada laga jaraya, horta laga jaraya. cid walba adiga kula dhalatay saameynaysaa. waayo waxay u saameynaysaa adaa dambiga sameynaya. adiga dambi aad sameynaysid dambi oo micnaha ma ahan oo si kale iskaga dhac ma ahan, waa dambi aa u bareerto waay. waayo marka sheekada dhageystay wiilkii gabadha waxay sameynayaan, gabadhana lama qasbin, wiilkina gabadha muu qasbin, balse waxaa meesha ku jira khiyaano waxa la dhahay. haddii gabadha ay ku aamintay oo isku keendhiibtay oo ku dhahday walaalo oo mar walba ay ku sheekeynayso, maahan in aadan si khiyaano ku jirto in gabadhii aa muuqaal intaaga duubto haddana baraha bulshada aa la soo hadid. way ku qadi kartaa dhalinyarnimo oo waa duubi kartaa, laakiin inaad ka fikirtid waay. wax walba intaas sameynin kahor Soomaali waxa dhahay wax walba intaas sameynin kahor waa inaad ka fiirsataa waay. waayo muuqaalkan baraha bulshada dhigtay maxaa ficil oo adiga kaasoo gaari kara shakhsi ahaan, maxaa kaaga imaan kara? ma dir baa ku mutaysan kartaa, ma qoyskiina dhib loo geysan karaa, maadaa nolosha dhib ku imaan kartaa, ma ruuxa aga dhibka ugu geystay suu noqon karaa. ruux baraha bulshada ku dhex dhaqan oo ku dhex dhaqmi karo, ku dhex milmi karo oo bulshadii dhexgeli kara ma noqon kara maya. waa ruux adi aa caybaysay oo aa fashishay oo si xun aa ula dhaqantay. dadkii ruuxii bulshadu ka cararaya, bulshadu ka gabanaya, bulshadu ka cararaya, bulshadii ma soo dhexgali kara. intaasoo dhibkaas dhan nala u keenay. marka insha allah waxaan dhahaa gabdhaha wiilasha wiilashana la aaminin. wiilka aaminaysa ha noqdo in adeerka ruux kale oo qad isku barateen ama isku barateen maxaa la jiri meel intaas ugu amaateen, meel magaalo ama bulsho ama xaafadna isku amaateen, maanta barateen, maanta lambar kala qorateen soo wacdan ha sahaamin. waxaad ku aaminaynin waxaad ku noqonaa cadeen ku noqonaa wixii walaasha cayin ku dhacay, walaasha cayin quraxa wixii ku dhacay ya cadeen ku noqonaa. marka insha allah waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan horta wanaagii iyo sharaftii dhaqankii iyo hala soo celiyo hidihii dhaqanka Soomaaliyeed hala soo celiyo. taasi micnaheeda ma ahan diinta laga wicilmay, laakiin ruux walba diinta ku adkaado. ruux walba islaam oo Soomaali jinsiyadda Soomaaliya haysto oo laajida aan ku hadlayo waxaan kala dardaarmayaa inuu ku dhegnaado sharciga, qaynuunka, diinta, asluubta, adaabta ku adkaado. because berigi hore anaga waxaan kusoo dhex koran dad oo
wanaagsan oo ruux wanaagsan ku sheegay adeer way abti way eed way abay way dhahay laakiin damanka hadda aan joogno dadka aftirka waxaa la baraa qabiil baa la baraa laba baro wanaag iyo maxaa la jiray warsan jaceylka iyo dadka lama baro waxyaalaha oo fiican lama baro maanta anaga waxaan xasuustaa ereyga aan niyadeeda ka bixin waxaa waaye wiil aan saaxiibana wuxuu ku dhahay jiray we are modernized not westernized we are westernized not modernized anaga waxaan qaadan dhaqankii galbeed aan qaadanay dhaqankii galbeed yaa la wada qaatay maanta laakiin anaga maana hormarin oo si kale uma hormarin ruuxu hormar waxa weeye diintiisa hormarsado dhaqankiisa hormarsado maxaa la jiray oo noqdo dad lagu daydo waxaan ka xishoonaynaa maanta diintaan ka xishoonaynaa waxaan ka xishoonaynaa dhaqankayna anaga soo jireenka ka xishoonaynaa waxaan jecelnahay inaan sameyno waxyaala qaab daran maxaa ka mid ah surwaalka la dhuubsanayo goonada la isku dhejinayo diracoo la isku dhejinayo gamiska la gaabsanayo si cariiri loo xiranayo waxyaala noocaas oo waxyaalaha oo dhaqanka galbeedka dadkii waa dhaqankii galbeedka waxaas marka taas horumar ma ahan waa dib u dhac adiga kugu amaaday waa diintaada ku amaaday dhaqankaada ku amaaday wax walba ku amaaday wadamada hadda hormaray ruux markay rabaan dadka markay rabaan inay qadka ka saaraan marka hore waxaa lagu ciyaarayaa dhaqankaada lagu ciyaaraya maskaxda laga dilay dhaqankaada lagu ciyaaraya marka dambe adiga waa toos dadka ayaa la qabsanaysa marka waxaa ceeb kula noqonaysaa in aad u dhaqantid si waalidkaada ugu dhaqmi jiraan ugu dhaqmaayo so waalidkaada dhaysa you crazy but dad what kind of this dress you're wearing take this one other you direct your parents like si kale oo ay garan jirin oo dhaysa waxaan ma fiicno hoy iska dhaaf hantaan xiro waxaan xiro so waxaa ku gelinaysaa sidii wax dhaxanta laga hartaa kan waxbaa laga hartaa so last day waxaa noqonaysaa waalidkii in haddii uu daciif yahay in qadka ka saartid uu noqdo waalid maxaa laa jiri oo qaatay dhaqankii kala qaato waay marka insha allah waxaan dardaarmayaa dhalinta lab iyo dhidig daayartoo lab iyo dhidig aan dardaarmaya in horta marka hore ay isxishmeeyaan isjeclaadaan iswanaajiyaan adi markaa wax wanaajisid walaashaada waa la wanaajinaya tan gabadhan markay wax wanaajisa walaalkeeda waa la wanaajinaya laakiin haddii walaalka adi aa xumaysid adi aa ruux xumaysid adna waa lagu xumeynaya deen meel kuu taabay ruuxa ku xumeynaya waxaa laga yaabaa inuu ka aasas lahayn laakiin uu micnaha oo taariikh qoran ay tahay oo lagu soo marayo oo ruuxa lagu soo marayo wax lagu tusaa marka insha allah waxaan leeyahay dhammaan Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan aan is jeclaano Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan is qadarino aan is xishmeeyno waxa dhacay maanta dhacay aan ka fiirsan dib dambe u dhacin aamin ma jiro aamin wuu dhintay waxaan nool taxadir ninka la dhahay aamin wuu dhintay aamin waa la soo aasay taxadir baa nool adduunka maanta taxadir maanta hadaad taxadir weyso yaa ku taxadir biri cid ku taxadiraysa ma lahan waa artan cayni meesha la dhigay sharafteeda iyo sumcadeeda lagu ciyaaray gabdho kale oo fara badan baa jirta maanta aanan ka hadlaynin oo media ka badan oo ku badan baa jira gabdho kale waxaa jira ayaga si aan caadi ahayn ayaga naftirkooda cod intay soo doon soo dhiganaya ayagoo raadinaya view iyo subscribe iyo like waxaa raadinaya wallaahi waxaan kuu sheegayaa chance waay horta fursaddan ruux iqli leh yaa dareemaya fursaddan chance waay chancekan ilaaha kusoo maray beri kuma soo mari doon berdiman kuma soo mari doon maanta kula taagan yahay maanta uu kula taagan yahay haddii aa haysid qalabkii waxa dadka lagu marin lahaa dadka waxa uu sheegaysa noqdo wanaag dadka waxa uu sheegaysa wanaag ka noqdo fursaddan ka faa'iideyso waxa kaga faa'iideysataa adoo sheeq oo dad hor taagan oo dad wacdinaya iska soo qaad markii youtube-ka dhex taagan tahay dad wax u sheegayso una sheeg wanaagga dadka far inta aad taqaanid ilaahay uu ku baray بلغ الرسالة ولو كان آية قرآن كاتب بلغ الرسالة ولو كان آية هل آية هنا قضية كجارس لأن هل آية مركز جارس يصير أجر كجارس على ثير ألف لامين بالله ألف حرف واي من حرف واي لام حرف واي حرف كين صدم أجر بكوجرا مركز دي كونا جوش تيد أفرتيد معناه حوا ونين أجر شقستها إن شاء الله أنت هسا كوسو جوينا لما أنت كحيرن فعليه برنامج كده أما يوتيوب كده أو youtube-ka jimaala yar official ku xiran waxaan leeyahay dhammaantiina waa mahadsantihiin subscribe like dhaha gambalaalkana ku dhufta sida u noqotid ruuxa ugu hore oo warbixinteeda ay soo gaadhay insha allah waan idin salaama dhammaantiin waa ku sugantiin waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan maalinteeda